kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal xooggan oo ka soconaya magaalada Bacadweyne u dhaxeeya ciidamada Galmudug iyo dadka deegaanka oo isku dhinacay iyo Al-Shabaab. Dalab uga yimi maamul goboleedyada qaramada midoobay oo qaarkood ay diideen iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo maanta booqasho ku tagay xarunta agoomaha ee magaalada Muqdisho. Qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan. aanu ku bilaabanay dagaal xooggan ayaa maanta waxa uu ilaa galabta ka soconaya magaalada Bacadweyne ee koonfurta gobolka Mudug. Dagaalkan oo u dhaxeeya ciidamada dowladda goboleedka Galmudug iyo dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab ayaa waxa uu ka soconaya magaalada Bacadweyne meel duleedka ka dadka deegaanka iyo ciidamada Galmudug oo iskaashanaya ayaa waxay Al-Shabaab kula dagaalamayaan duleedka magaalada Bacadweyne ee koonfurta gobolka Mudug. Waxaa la soo sheegay inuu jiro khasaare ka soo gaaray dhimasho iyo dhaawac dagaalka halkaas ka soconaya ee u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab. Dagaalkan oo bilowday kadib markii Al-Shabaab ay dadka deegaanka ama magaalada Bacadweyne ku soo tuureen hoobiyaal ayaa kadib waxaa halkaas ku baxay ciidamada dowladda goboleedka Galmudug iyo ciidamada magaalada Bacadweyne ee koonfurta gobolka Mudug. Al-Shabaab ayaa waxa la sheegay dadka deegaanku inay kala kulmeen iska caabin xooggan iyagoo la soo sheegay inay dib u riixeen Al-Shabaab meeshii ay ka soo duulaan tageen uu dagaalku hadda ka soconayo. dadka deegaanka oo isabaabay ayaa waxa ay weerarkaasi iskaga caabiyeen Al-Shabaab kadib markii weerar ay ku soo qaadeen kurmad kala duwan oo ka soo baxay magaalada Gaalkacyo iyo magaalooyinka kale ee Galmudug ayaa halkaas gaaraya iyagoo iska caabin xooggan kala kulmay. magaalada Bacadweyne oo 180 kiiloomitir dhinaca koonfurta ka xigta magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa dhowr jeer soo weeraray kooxda Al-Shabaab halkaas oo dagaal xooggan uu ka dhex maray. waxaa la soo sheegay dagaalka halkaas ka dhacay in ay khasaare xooggan soo kala gaareen halkaas ku dagaalamay iyadoo oo la soo sheegay dadka deegaanku inay iska caabiyeen. dadka deegaanka ayaa waxay Al-Shabaab hore ugu diideen inay soo galaan magaalada Bacadweyne iyagoo markii horeba kula dagaalamay waxay ugu yeedhaan asakawaadka ay diideen. wararka ayaa waxaa intaasi ku darayaan in gabi ahaanba halka dagaalkaas uu soconayo ciidamada dowladda Galmudug iyo dadka deegaankuna ay iska caabin kala kulmayaan Al-Shabaab. maanta uga yimi qaramada midoobay maamul goboleedyada taabacsan dowladda ayaa gabi ahaanba ay ka soo horjeesteen. xogayaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliya Mr James Wan ayaa waxa uu maanta ka degay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. waxa uuna madaxweyne Qoorqoor u sheegay in ay fuliyaan oo ay tanaasul u sameeyaan madaxweynayaasha Galmudug madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. waxaa wararku intaas ay ku darayaan in gabi ahaanba uu diiday madaxweyne Qoorqoor tanaasul uu sameeyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland waa soo hadalka u dhigay. hore ayaanu tanaasul u sameeyay oo shirarkii Dhuusamareeb 2 iyo 3 ay diideen kadib markii Dhuusamareebna uu bilowday kadib markii uu fashilmay uu yiri iskudayo badan oo aanu sameynay mana jirto tanaasul aan sameynayna waa sida wararku ay sheegayeen in madaxweyne Qoorqoor u diiday. madaxweyne Qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa Cali Daahir Ciid ayaa waxay maanta magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug kula kulmeen xogayaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliya Mr James Wan. wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in gabi ahaanba ay isku fahmi waayeen xogayaha guud ee qaramada midoobay James Wan iyo madaxweyne Qoorqoor kulanka halkaas maanta ka dhacay iyada oo madaxweyne Qoorqoor uu diiday inuu ka aqbalo dalabaadkaasi isaga oo sheegay inuu tanaasul badan u sameeyay. madaxweyne Qoorqoor ayaa waxa uu dhinac leeyahay ama la safan yahay dowladda Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo iyadoo oo la dareensan yahay in madaxweynayaasha hadda xilka haya ee maamul goboleedyada ee koonfur galbeed iyo Hirshabelle iyo Galmudug ay dowladda Soomaaliya soo saartay oo aan si sax ah lagu dooran waa sida ay bulshada Soomaaliyeed aaminsan tahay oo aan hadda la jiraan dowladda Soomaaliya. waxaa wararku ay sheegayaan in haddii madaxweyne Farmaajo uu meesha ka baxo in iyana aysan ka dambeyn doonin maamul goboleedyadaas ee hadda dowladda Soomaaliya taabacsan. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta waxa uu booqasho rasmi ah ku yimi xarunta agoonta ee magaalada Muqdisho. waxaa xaruntaasi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu kula kulmay agoonta halkaas lagu xanaaneeyo ee ku taala magaalada Muqdisho isaga oo farxad la qayb qaatay. halkaasi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta kula qadiyay carruurtaasi isaga oo gabi ahaanba ka farxiyay markuu halkaas u booqday. xarunta
oo gacanta ku haya Janaraal Cali Bare Xirsi Cali Gaab ayaa waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu uga mahadceliyay Cali Gaab xarunta uu agoomaha halkaasi ugu dhisay guud ahaan warkii caalamka oo kala socotan channelka aan ku leenahay abshir joog ee qiimaha iyo qadarinta naga badan ee waana intaas nabadgelyo ilmi inay idin barataan oo idaan noqon cawaaniyo